qofka bil aadan kana wax la saas lagu waajibiyay inuu qorshe yeesho waad aragteen waqtiga muhiimadda uu leeyahay qorshaha muhiimadda uu leeyahay waad ka warqabtaan bil aadan kana loo abuurin inuu iska cuno iska cabo aqliga loo yeelay xayawaanaadka waa laga soocay af xasibtum annama khalaqnaakum abathan haddaan usoo daadego barnaamijkan scheme fooga ama alkhudda diraasiya in la sameeyo muhiimadda ay leedahay waxa kow ka ah waxa meesha ka baxay wax la yiraahdo inay fashilmaan ama alfashal الدراسي wax la yiraahdo ay meesha ka baxay anaga macallimiina wadanahay waan ka warqabnaa qaar ka inuu ku shaqay jireen wax la yiraahdo kuday ka laabo laakiin waxba aan faa'iidna waa kamid maalmahan in barnaamijkaas uu fashil ahaa sababta qoftan wax qorsheysan wuxuu qorsheynaa asoo is ogeyn wuxuu qorsheynaa inuu fashilmo oo ka shaqeynaa marka waxba laga faa'iido waxa kamid ah in qofku ama macallimiinta ay hadda kadib ku xisaabtamaan 10 qoshar la'aan inuu soo soconaynin marka macallimiinta waxaan uga mahad celinaa soo Faysal u horeeyo in noo suurtageliyeen khibradaas in inta ka xambaarno faa'iido kale ay leedahay waxa kamid ah qorsheynta in maamulka laftirkiisa wax badan ka faa'iideeyo ardaduna waxyaabo badan oo aysan fahamsanayn ama qaabab badan wax lagu dhigi jiray wax ka bedelayo sababta duruusta ama casharada waa kala dabiicad isku nooc ma aha macallimiinta laftirkooda waxay u dhigayaan isku nooc ma aha waxyaabahaas oo dhan haddaan la sameeynin khidda diraasiya ama scheme of work meesha ay ka baxayaan marka waxaan isku baraarujinaynaa haddaan macallimiin nahay ama tarbiya aan dhigno ama xisaab aan dhigno ama chemistry aan dhigno inaan horta awalan ilaahay uga cabsano waxa aan dhigayno sababta biilka ama wax yarka ka qaadanaysid qiyaamaha ay kugu soo laabanay haddaan maanta khiyaantid ma ahan waxaad hor uga soo kartay hadhow kugu soo laabanay hal dollar ama hal senti oo xaaraan oo jirka galana qiyaamaha naara laga goynaa waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam kullu lahmin nabata bil harami fan-naaru awla bihi marka dhamaantan aan ku xisaabtano waxa aan sameeynayno horta awalan ilaahay dirtaan u sameeyno kadibna aan ikhlaasi aan la nimaano inay dhab naga tahay